بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركله iyo kulan kale iyo barnaamijkeeni aan ugu magac darnay baraarujinta iyo bulshada iyo baraheeni bulshada ee kala duwanaa waxaynu kaga hadalnaa sidaynu caadada ah waxyaabaha waaqica marka taagan ee u baahan in laga hadlo iyo waxyaabaha aan ugu soo diriyay ee kolba la soo kulmaya bulshadeena noloshooda caadiga nolol maalmeedka ah iyo wixii xagga internetka iyo meelaha kaga imanaya baraha bulshada labada dacal bayna oo ka eegna ayaynu kolba wixii ka hadal u baahan iyo wax ku qaanshay waado aan ku soo gudbinaa kelmadeena maanta waa kelmad aad kooban hase yeeshee miisaan weyn leh oo haddii la istiraado ka hadla ama balbalaadhiya ama si waafi ah looga hadlo muxaadarooyin fara badan iyo fadhiyo fara badan iyo jilsado fara badan iyo aqoon durugsan oo fara badan u baahan in lagaga hadlo hase yeeshee inuu kelmadeeda oo kooban ayaynu kusoo koobaynaa si aynu uga faa'iidaysano waqtiga waxaad moodaa baliyahan dadku inay dulqaadkii iyo kalshihii ay wax ku daawan jireen ama wax ku dhageysan jireen ama wax ku sugi jireen oo ka yaraaday saan waqti nooga dheeraan in yaro kooban ka dhigaynaa kelmadeena maanta waxay tahay had iyo jeer waxa aad ugu batay khaasatan xagga dhalinyarta isticmaala baraha bulshada ee kala duwan nolol maalmeedkana tan way ku yartahay caadiga laakiin xagga baraha bulshada ay aad ugu badan tahay waxyaabaha la yiraahdo xubnaha taranka ee ilaahay aad iyo aad u adkeeyay meesha ay ku yaalaan iyo afsoomarintooda labadaba ayaad moodaa in la banaystay oo la fududeystay oo ama la soo bandhigo ama laga hadlo ka hadalkooda habato ee bariyahan dambe aad ugu soo badanaya xubnaha taranka waxuu ilaahay la siiyo qaariya rag iyo dumar baa mid walba ilaahay isaga siiyay oo ku rakibay oo maxay ahayd tole u hadiyeeyay ma aha wax uu qofku kasbaday iyo wax uu qofku isagu ilaahay oo aniga isii kuwa noocaas aniga ku kale noocaas isii magacooda sheegidooda iyo maxay ahayd tole meesha ay ku yaalaan agagaarkooda intaba waa in aad loo asturay oo aad loo xaftiyay oo aad maxay ahayd loo dhowray inaguna waxay naga noqotayba sida nolol maalmeedka ee caadi waxaan cunno oo kale qadada iyo qawaraacda iyo maxay ahayd cashada sidaynu u caadaysanay oo kale ayaad moodaa ka hadalkooda in weliba khaasatan marka laga hadlayo xag cilmi maaha xag cilmi in maxay ahayd dadka loo faa'iideynayo leeyahay waxaas wax u yeelaa laga ilaaliyo waxaas uu faa'iido u leeyahay hal la cuno waxa sidaaysa hal leeyahay maaha waa foolxumo kale oo aad maxay ahayd looga yaqiiqsoodo sida loo hadal hayo iyo sida loo wado loo qaada dhigayo iyadoo marka horeba maxay ahayd tole afsoomarintooda ay dhib badnayd oo wax laga xishooda ahayd ayaa haddana la balbalaarinaya ama iyaga laftooda la soo bandhigo ama ka hadalkooda siyaabo dee naftu diidaysa oo nolosha caadiga iyo dabiiciga ka cararayso ha looga hadlo marka taas waxayna dhaxal siinaysaa mar kastoo waxaan lagu celceliyo oo maxay aad looga hadlo wuxuu noqdaa waxaanay wax naftu la qabsato oo nolosha caadiga ka mid noqda si kastuu foolxan yahay waxaan barnaamijkii ka horreeyay muuqaalkan kaga hadalay waxyaabaha aad adduunka intaad joogto kaydsanayso iyo waxaad sii horumarsanayso labadaba inaad maxay tole ka taxadirtaad ilaaliso marka qofka maanta waxaan ka hadlayay ee ku dhex jiray ee maxay tole san foosha xun leen arkayna waxaan dalka soo dhigno ama aynu dhinaca saas looga hadlaa ama saas yihiin dalkan soo bandhigno maaha ee wax aynu wada aragnay nolosheena ku soo kordhayo wax aad looga naxano waxyaabo aygaas markuu qofku ku dhex jiro wuxuu kaydsaday waddanka kaga tagay noqonaysa oo malaayiin sano hadduu doono qofka sii dhinsanaa iyo baraha bulshada inta ay jiraan qof walba uu ka hor imanayo arkaya qofkii hebel ahaa hebel ahayd ee maalinta caynka waxa ka hadlaysay xubnaas oo kala dhigaysay soo sheekeynaysay marka waxyaabahaasi ubadkeena yaryar ee koraya markay la jaan qaadaan arkaan waxan wixii aad uga naxayaan oo yaabayaan markay ku sii dhex jiraan arkaan waxay noqonaysaa waxay arkayaan wax nolosha caadigeed kamid ah oo iyaguna inay isku dayaan inay sameeyaan isku dayayaan marka xubnaha taranka ku hadalkooda laga hadlayo iyo soo bandhigidooda labadaba bal aad la iska ilaaliyo oo waxyaabaha nolosha wax yeelaya ay ka mid yihiin marka Allah loo si dhaxalkalo waxa inta ka sokay ka badan oo aan ka iraahdo garan maayo wax ma oran lahaayo warbal heedhaha bartus kugu noqon oo dadka ka hadlaana malaha oo dad xanuunsanay maskaxiin xanuunsanaya labada xubneed ilaahay ragid marsiiyay iyo waxay qabtaan iyo waxay maxay ahayd tooli ilaahay u abuuray iyo waxay yihiin ayun bal mashquulayba maxaa dad nolosheeni dhamayd ka dhigay inaan ku meereysano inta laba lugood waxaysa bal hadda qofkii ka hadlayana aanu naseexayno oo si waani iyo aqoon leh aan uga talino oo aynu ugu sheegno oo hadduu ku qaadan waayo aynu si cad ula hadlo bal aynu dadkana wax u sheegno qof walba qofkan ka hadlaya taqaanay hebel waxyaabaha aad u sii fududeeyeen waxa kamid ah baraha bulshada live-ka la soo galayo dadku waxaad moodaa noloshii caadiga qof markuu gurigiisa joogay iyo tan uu baraha bulshada live-ka ugu jiray inay kala duwan tahay oo markan lagu yiri wixii aad doonto iska dheh oo ka hadal oo wixii aad doonto gal oo qas oo qub bal marka aynu aad ugu digtoonaano oo aynu aad u soo jeedno oo waxa la moodaa inaynu si u hurudnay oo si maxay nagu sii yihiin bal aynu nafta iyo nolosha
iyo jirkeennaba soo jeedino iyo caqligeennaba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.